xukuumadda Somaliland ayaa jawaab adag ka bixisay hadal ka soo yeedhay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland ayay wasaaraddu ku taageertay boqolaalka qof ee laga musaafiriyo Laascaanood, dadkaasi oo ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa doortay inuu u gudbiyo xog aan sal iyo raad toona lahayn oo uu la wadaagayo eedeymo aan sal iyo raad toona lahayn arrinta go'aanka sharciga ah ee lagama maarmaanka oo ah xukuumadda Somaliland ee musaafiriinta shakhsiyaadka loo soo xulay kuwaasi oo si sharci darra u degay degmada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ee Somaliland ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka. Wasaaradda ayaa xustay in go'aanka musaafiriinta dadku ay ka timi arrimo la xiriira amniga iyo codsiyo ka yimid dadka deegaanka. Sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland ayaa caddaysay inuu jiro khaladaad ku saabsan habka loo maray musaafiriinta oo aan ixtiraamaynin xuquuqda aadanaha. Hadalka Roble ayay xukuumaddu ku tilmaantay mid ka baxsan xayndaabka diblomaasiyadeed oo faragelinaya arrimaha gudaha Somaliland. Daandaansiga noocan oo kale ah ee ku saabsan arrimaha gudaha Somaliland ma aha mid la dhayalsan karo, waxayna markhaati cad u noqonaysaa in dowladda Muqdisho aan loo arkin inay tahay saaxiib caalami ah oo la aamini karo marka ay timaado nabadda, amniga iyo xasiloonida Geeska Afrika oo dhan iyo gobollada Badda Cas, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka. Xukuumadda Somaliland waxay adkeynaysaa ballanqaadkeedii ahaa inay la shaqeyso beesha caalamka iyo jaarkeeda si dunida ay uga dhigto meel wanaagsan oo nabdoon, ayaa sidoo kale lagu yiri war-saxaafadeedkaasi. Axmed Saki Ibrahim, CBA, Hargeysa. hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Somaliland. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees. tayo waa Telesom.